falanqaynta dhacdooyinka. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii falanqaynta dhacdooyinka oo xiliyadan oo kale aad ka daawan jirteen telefishinka caalamiga ee Somali Channel xaruntiisa magaalada London. barnaamijka falanqaynta dhacdooyinka waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa maanta sida la socotaan waxaa jirta doodo kulul oo ka soconaya hadda wadanka Soomaaliya iyo caalamkaba kuwaasi oo ku saabsan August marka la gaaro isbedelka iman karaya. waxa kale oo hadda muranka ugu weyn ka taagan yahay dhinaca odayaasha dhaqanka oo iyagu mowqif taagan iyo xubnaha dawladda ku meel gaarka ah iyo Danjire Mahiga oo asaguna mowqif kala istaagay oo ku saabsan odayaasha dhaqanku dastuurka inay soo xulaan oo ay ka hadlaan miyay xaq u leeyihiin mise waxay xaq u leeyihiin in ay ergooyinka iyagu ay soo xulaan aqoon-yahanada ah ee loogu talagalay inay iyagu aqoontooda ku cabiraan qaabka uu yeelanayo ama uu noqon karo dastuurka Soomaaliya loo yegleelayo. qodobka kale waxa uu yahay sida aan la socono musharaxiin aad u tiro badan ayaa u sharaxan tartanka madaxtinimada Soomaaliya waxaana kamid ah xubnaha sare ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya. haddii la doonayo muddada 40 cisho ee ka dhiman in go-aan cadaalad lagu gaaro sidee loo ogaan karaa oo guddi madax banaan ma la sameeyay dadka xildhibaanada ah idaacadaha dawladda ma ka hadli karaan aan ilaahdee musharaxiinta madaxtinimada xaq ma u leeyihiin inay ka hadlaan oo ay ka doodaan idaacadaha dawladdu ay leedahay. sidoo kale xaq ma u leeyihiin in la sameeyo guddi ogaada dhaqaalaha wadanka Soomaaliya habka loo maamulayo. haddii ma laga yaabaa in dhaqaalaha wadanka Soomaaliya hadda ay dawladdu gacanta ku hayso inay u adeegsato in ay iyagu isku soo sharaxaan. haddii taasu timaado se doorasho cadaaladeed ma la helaya. waa laba qodob oo isku mid ah oo is saaran. insha Allah taala barnaamijka waxa igala qayb galaya Jaamac Ali Jaamac oo isagu ahaa madaxweynihii hore ee dawlad goboleedka Puntland haddana waa musharax kamida musharaxiinta tartanka madaxtinimada wadanka Soomaaliya oo bisha August insha Allah taala magaalada Muqdisho markii ugu horeysay uu ka dhici doono doorashadaasi. waxa kale oo barnaamijka igala qayb galaya generaalka ahna abukaate Soomaaliyeed waa Generaal Cismaan Xaaji Cumar Falco. Cismaan Xaaji Cumar Falco isagoo qudhiisu waa musharaxa madaxtinimada wadanka Soomaaliya oo waxa uu doonayaa in uu ku soo baxo tartanka madaxtinimada insha Allah bisha August ka dhici doona magaalada Muqdisho. haddaba labadooduba waa laba musharax awoodda ay u yeelan karaan inay musharaxnimadooda meel walba ka baahiyaan awoodda ay u yeelan karaan iyaga ayaa ka warami doona. iyo waxaa kaloo isaguna nala jooga Cabdirashiid Saad oo isagu ah danjiraha wareega ee dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee waliba arrimaha caalamka u qaabilsan isla markaana shirarka caalamka u matala dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Cabdirashiid ima sheegin inuu yahay musharax madaxweyne laakiin inuu xilkaas hayo ayaan runtii aad ula socdaa. waa tahay aan ku bilaawno marka hore bal waxaad nala daawataan toddobaadkii hore ee lasoo dhaafay hadal dhex maray odayaasha dhaqanka iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo wariyaheena Nimco Bashiir ay soo dirtay. xilli maalmo kooban ay ka dhiman yihiin muddadii loo qabtay in madax dhaqameedka Soomaalidu ay ku soo xulaan guddiga ansixinta dastuurka cusub ee dalka oo dhaqangelintiisa aad moodid inay ku kala aragti duwan yihiin. madaxda sare ee dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda ku meel gaarka Soomaaliya oo booqday madasha uu shirku uga socdo madax dhaqameedka Soomaalida waxa uu kaga codsaday odayaasha inaysan isku mashquulinin aqrinta nuqulada loo qaybiyay ee ay soo dadajiyaan magacaabida guddiga loo xilsaaray ee ansixinta dastuurka cusub ee dalka. Cabdisamed Macalin Maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya oo maanta uu dib ugu soo laabtay magaalada
ayaa kulan uu la qaatay odayaasha sidoo kale kusoo hadal qaaday muddada ka dhiman xilligii loo iclaamiyey in lagu qabto shirka ansixinta dastuurka iyo dhismaha dowladda cusub ee la doonayo in loo dhiso Soomaaliya waxaana wasiirku uu sheegay in haddii dib u dhac uu ku yimaado ansixinta dastuurka iyo doorashada dowladda cusub ee dalka ay suuragal noqon doonto in dalku uu gacanta u galo dowladaha shisheeye waxaa la marka ilaahay markuu maanta intaan joogno waxaan haysanaa lix usbuuc yaan haysanaa haddii si kale lagu yiraahdo waa muddo yaroo aan dhammayn soddon iyo ishiin maalmood dhammayn yaan haysanaa muddadaasaa laga rabaa inaad ku keentaan number one inaad constitutionka inta ka doodaan ansixisaan 825 qof aad keentaan xildhibaanadii aad keentaan xildhibaanadii ay markaas ayna doortaan speakerkii doortaan speakerkii soo joogo oo baarlamaankii joogaan ka bacdi markaas ay madaxweyne doortaan waxa weeye muddadaas baa laga qaban intaas inay ku dhamaato ka bacdi madaxweynahaas waxaa yidhahda shaqo kaleeto oo ah inuu markaas prime ministerka waddanka doorto prime ministerka waddankana baarlamaanka loo keeno markii ansixiyaan ka bacdina uu prime ministerka goli wasiirada doorto goli wasiiradana markaas loo keeno baarlamaanka waxaa laga rabaa marka maadaama aan haysano waqti yar muddo yar gaaban aan haysano markii aad soo gudbisaan ergadii iyo wixii aad ka darteen constitutionka fikradiina aad soo gudbisaan isla markiiba aad bilowdaan sida u socday lahaydeen maxaa la yidhaha xildhibaanadii u socday lahaydeen waxaad ogtihiin shaqada udubka badan oo taallaa waxaye xulitaanka xildhibaanada waxaa laga rabaa inaad beeshan kula ilaalitaan inaad la fadhiisataan ayagu inaad maxaa la yidhahdaa aad u sheegtaan nambarka laga dhigo inay markaas ay ka doodaan inay meeshii markaas kadalkii matalayo markii adigu meeshii isku soo wafrado oo lagu diibo markaas inaad maxaa la yidhahdaa aad soo gudbiso haddaan aad ugu usbuuno waxaa suurtagal ah oo si shabeen oo xanimo oo aan la gaarinin meeshii loo socday aan la gaarin waxay sabab u noqon kartaa in waddankii dhan oo gacanta ka baxo in waddankana gacanta loo geliyo dad aan maxaa la yidhahdaa ehel u ahayn gacanta loo geliyo in waddankii sida waqtigiiba muddo hadda ka hor dhowrkood ka hor baa laga soo geli jiray oo layihiin 7 qof oo ajaanib ah waddanka lagu yidhahda oo hayanaysa 2 sannadood intii dadku ay maxaa la yidhahdaa ka baraneen sistam ka baraneen inay u noqoto oo waddankii laga qaado xorriyadda laga qaado qaar ka mid ah madax dhaqameedka oo su'aalo hordhigay wasiirka ayaa tilmaamay in ay jiraan qodobo dhowr ah oo ay saluugsan yihiin una baahan in wax laga bedelo iyagoona madasha ku xusay qodobada ay dhaliilsan yihiin walaalkeena wasiirku wuxuu yiri aan qaadan waxa allaale wixii dastuurkan ku qoran aniga waxyaalo badan ayaan ka dhaleysanayaa ku qoran gabadhayda afkaada lagu meerin kara ku qoran mad yeelan waxaa ku qoran 15 sano ayaa 18 sano ku qaangara shariicada muslimka meelaha ugu taala ma ogi asabadeena Soomaaliya ma waxyaalaha saanta qana saacada dowlad wasiir waxaasna waa soo qoraynaa ergadiina waa soo gudbinaynaa waxaan isku afgaranay inaan wax ka soo saarno waxa qaldan oo ka soo saarno madaxda dowladda iyo annaguna aan shaargarino arrintaas in meel la saaro laga saaro markii annaga mas-uuliyadana saaran haddii qolo hore ay la yacday toodi annaga midda iyaga waxaan rabnay inaan ku faraadayno مرة إلى برنامج واتهاي ان كل ما وداوني ولينا هدا مرنكو waa sii siyaaday waxaana kamida inta jira mehiga oo odayaasha dignin siiyay oo ah inaanay hawl ay shaqo ku lahayn ay safaraha la galin oo ah in ay ayagu ergada soo xulaan laakiin oo aanay dastuurka ayaga u oolin madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah Soomaaliya sidoo kale ayuu yiri oo wuxuu yiri waa inaad ka hor wareegtaan oo ergadii ayadu dooda gali lahayd waa in la sameeyaa marka su-aasha taalo waxay tahay jaamaca jaamaca ku bilaabayo wixii odayaasha horta loo doortay ma waxay ahaayeen inay erga soo xulaan mise inay dastuur ka hadlaan bismillaahi raxmaani raxiim ilaah baa mahad leh waxaan mahad u celinayaa telefishinka
Somali Channel iyo howlwadeenadiisa dhammaan iyo farsamo yaqaanadaba su-aashii haddaan usoo laabto hogaamiye dhaqameedyada Soomaaliya waxa weeye xilliga hadda la joogo awoodii ugu sarreysay ummadda Soomaalida weeye mana aha mid ama UN-ku ama dowladda ku meel gaarka ahi ay jagadoodii kana qaadi karto kana wareejin karto ma aha waa wax soo jireen ah oo inta yaroo 100 sano soo jiray weeye wixii dalka dantiisa ahna dabcan wanaageedii bay ka shaqaynayaan wixii dalka dhibaato u keenayana waa ka digayaan ummadda dowladda iyo iyagu iyo odayaasha dhaqanka shacabku wuxuu ku kalsoon yahay odayaasha dhaqanka marka odayaasha dhaqanka taladoodii waxaa muhiim ah in la tixgeliyo wixii markaa iyagu ay siday quman ay u soo jeediyeen oo socon kartana la qaato wixii ay si farsamo ah loo yara diidan yahayna waxay u baahan tahay in laga wada hadlo oo sidii arrintaa mataqaan looga gudbi lahaa ma aha in odayaasha cadaadin iyo cabsiin iyo cagajugleyn lagu sameeyo waayo waxa weeye waxay sidaan ummadda magaceedii bay sidaan mana aha dad iyagu ama cabsi ama cadaadin ama cagajugleyn wax ku ogolaanaya ma aha marka waxaa wanaagsan sidii hawsha u meel mari lahayd in laga fikiro waa tahay waa maasan tahay cabdirashiid markii hore oo arrintaha lasoo qaaday waxay ahaayeen in odayaasha dhaqanka 130 iyo xoogaa ayay ahaayeen 135 ya 135 bay ahaayeen 825 inay soo xulaan 825 kuna ay dastuurka ka doodaan bay ahayd marka hadda inay ku adkaystaan oo yiraahdaan annaga ma ahane annaga marka hore waa in la qanciyaa xaq miyo u leeyihiin bismillaahir rahmaanir rahiim mahadsantihiin adiga iyo odayaasha kale halkaan fadhiya murashaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya u tartamaya arrintu horta waxay u baahan tahay in laga fiirsho sida ay wax u jiraan Soomaaliyana muddo dheer ayay khalkhal ku soo jiray marka in khalkhal cusub hadda la abuuro loo baahna waxaa loo baahan yahay odayaasha kan dhaqanka ee la soo aruuriyay sida ay ku yimaadeenba suuragalnimada ay ku yimaadeen waxa ka shaqeeyay dawladdan meesha jidha ee ku meel gaarka ee dhibaatada soo martay ee la soo rafaadaysay markii u horeysay ayaa qarankii Soomaaliya dawladda haatan u talaysa ay ku guuleysatay in ay xaruntii jamhuuriyadda Soomaaliya ee Muqdisho ay soo keento odayaal dhaqameedyo 20 sano la isla waayay inay dalka yimaadaan marka suuragalnimadaas horta dadka sameeyay iyo hogaanka wadanka madaxweyne Shariif Horseed ka yahay horseeda arrinta horta in abaal dadka Soomaalida iyo odayaasha iyo shacabka Soomaaliyeed ugu hayaan weeyaan waa koow taa marka laga soo gudbo iyaga hogaanka kaliya ma aha ciidamada qalabka sida dawladda dadka shaqaalaha oo dawladda u shaqeeya inta ka soo shaqeynayay in qaran Soomaaliyeed la yagleelo oo la taago oo xaruntii Soomaaliya ay maanta noqoto meel ay yimaadaan ummadihii kale oo shisheeye xitaa ciidamada ajnabiga oo walaalaheena u soo gurmaday ummadda Soomaaliyeedna ay joogaan waxaas oo dhan waxay suura galiyeen maanta inaan ku faani karno haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed in lagu shiri karo xaruntii Soomaaliya dawladda marka kuwa aan riyana iyada waxay ka shaqeysaa in si ay wixii u noqdaan wax leh legitimacy in nidaamka maadaama si kale Soomaaliya doorasho ka dhici karin in marka dawladdu ay ku taliso iyadoo kaashanaysa la taliyaasheeda iyo beesha caalamka in ay ku taliso in baarlamaan cusub oo wadanku uu yimaado sidoo ku imaan lahaa la raadiyo odayaashii dhaqanka marka halka u fiirso odayaashii dhaqanka ee dalka Soomaaliya 20 sanadood dagaalada sokeeye joogeen ee kala baabay ee qoloba gobol joogtay ee hanta wilfka iyo dhibaatadu ay ku dhaceen waxa suura galiyay in la keeno dawladda meesha joogta
dowladdii maadaama ay arrintaa ka shaqaysay oo xamar isugu keentay dowladdu waxay dowladdu ma waxay u keentay inay inta iyadu kaansato dowladdii waxay siisay awood ah odayaashii dhaqanka maadaama tihiin waxaanu idin weydiisanaynaa si kale oo dalkan Soomaaliya mudanayaashii baarlamaanka ugu imaan karaan ma jiraan ama dastuurkii wadanka cidii horseedi lahayd annagu wixii samaysan mayne waxaad noqoteen awood waxa u leedihiin in aad soo xulataan haddaad deegaanada iyo gobolada kala duwan ee dalka aad ka timaadeen ee xamar aad isugu timaadeen Muqdisho in aad soo xulataan mudanayaashii baarlamaanka labo dadkii dastuurkan ergadii ansixi lahayd 825 kuna ma aha dad la iska soo aruuriyo suuqa waa inay noqdaan dad aqoonta dowladnimada waxaan waxay u baahan tahay aqoon iyo cilmi science ku dhisan oo marka iyagii may taan ku wada arrintan aan ka hadlayno waa arrin u baahan wax garad ragga odayaasha dad waxa weeyaan wax soo bartay general weeye jaamaca al-Shaamع isaguna jaran kala weeye ciidamada qalabka waa dad soo bartay ama colonel ama whatever military waa dad wax soo bartay aqoontii kale madanigaana leh marka waxa weeye waxay cilmi gaar ah u leeyihiin aqoonta ay soo barteen waxa laga filayaa dastuurkan qodobada leh Soomaali dastuur ay lahaan jirtay ma jirin kii 60kiina waxa ka soo shaqeeyay caalamka iyo United Nations iyo dad aqoon-yahano Soomaaliyeed midkaana waxa loo baahan yahay dad garashadiisii leh waxaan waa draft ma aha wixii kan dad garashadiisii oo ka dooda oo wixii aan Soomaali u qalminna banaanka dhiga wixii u dhigmana marka u horseeda ummadda Soomaaliyeed waa ka general Cabdirashiid sida uu sheegay waa run horta odayaasha dhaqanka jaran markii waxa loo keenay inay 135 ergooyinkii dastuurka ansixin lahaa inay soo xulaan ayagiiba waxa la leeyahay waqti badan qaatay oo bishii August 39 maalmood ayaa xilli ka dhiman baalay iyagiibaana ku dhagan miyay xaq u leeyihiin mise inay inta soo xulaan aqoon-yahanaas u daayaan baa xaq u yahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu horeyso waxa isweydiin leh odayaashan la soo xulay oo ugaas iyo suldaan iyo imaam yacni magacyada wato ma wax ay abuurtay dowladda ku meel gaarka ah mase waa wax weligood jiray kuna tiirsan dabeecado iyo caadaad Soomaaliya weligeed ay lahayd waxaan aaminsanahay in ay ku tiirsanayeen caadaadkaas dabeecadahaas go-aanka ugu dambeeyana inay ayaga lahaayeen xataa waagi aanan dowladda ahayn ayagaa ummadda kala celi jiray ayagaa heshiisii jiray ayagaa maaragtay hadda marka tan keliya maaha in bagaasi ayagaa joogay ayagaa xulayay xildhibaanada walow ay awoodii lagula dagaalayo loo badnaa raggii warlordska ahaa ayaa awoodda lahaa laakiin su-aashaan rabaa inaad abaarto oo ah odayaashani ergada waa aqoon-yahano waa run oo rag aqoon-yahana oo khibrad u leh oo sharci yaqaana way ragga la soo xuli doono oo ayaga laftirkooda dhihi doono marka soo ma wanaagsana intii iyagu ay la dhiilaa stack ay ku noqdeen oo way ka hor yimaadeen intii la dhiilaa inay ergooyinka soo xulaan soo kama haboon uma arko waxaan u arkaa mas-uuliyada saaran nimankan title waxay wataan kii ugu sarreeyay oo dowladda ku meel gaarkaaba ka sarreeya waxaan qabaa walwal waxaa ku jira war haddaad xushiin arradu say naqanay oo hebel okay waa inay iska hubiyaan waxa loo xulaayo sababta loo xulaayo ka bacdiya cidda la xulaayo ay mataqaanaa xaq u leeyihiin inay ka fiirsadaan laakiin general halkaas ka dhex galay nimankan la xulaya niman ayagu wax dooranaya maaha niman xukun raba maaha waa dad aqoon-yahana oo dibadaha iyo gudaha laga keenay oo ka doodaya wax qaranka Soomaaliya dan ugu jirto oo dastuur aan leenahay ma qaadan karnaa kan ma noqon karaa kii ummadda Soomaaliyeed u qabo laga yaabo in ayagu wasi xaq jirsanaadaan oo ayagu noqdaan ba odayaasha tan dhaqanka oo sida u tilmaantay wanaaga iyo qiimaha ummadda Soomaaliyeed ku leeyihiin
ayaa waxa la siiyay intii dawladda ama cid kale ama ajnabi ay oran lahaayeen aqoonyahan iyo civil society isku keena warbal odayaashii dhaqanka inta shidaan oo aad qaybsataan waliba la yiri 4.5 ku qaybsada in deegaanada iyo dibadaha ay ka keenaan marka dadka imaan doona waa in lagu kalsoonaada ay noqdaan kuwa marka ka baarandaga dastuurkan draftiga ila dastuurkan waxyaabo badan baa la leeyahay baa ku jira oo khalada iyo kuwa saxaba wuxuu yahayba ma aha wax kii lagu dhaqi lahaa qaranka Soomaaliyeed waa kii la horgeyn lahaa dadka oo eran lahaayeen intaana waa ogolaanay intaana waa diidnay intaasna dawladaha soo socdo ha ka doodeen marka Soomaaliya shida in la galiyo oo baahna waxay u baahan tahay inay ka gudubto xilliga gaarka oo aan dawlad iyo qaran aan leenahay aan helo taana waxa weeyaan muddo baa laga soo shaqeynayay jug meeshada joog cid laga yeelaya male waya jaamac su'aashaas waxaan ku raacinayaa hal su'aal baan ku sii raacinaya laba arrimood baa is hortaala aqoon-yahanaduna ay aada uga doodeen waxay yiraahdeen mararka qaarkood xoogaa in isdabciso ayaa dhaantay intaad meel ku adkaysan lahayd waayo plan B baa soo socdaa la yiri plan B gaas waxa weeyaan haddii odayaashuna meeshaas istaagaan macnaha dastuurkiina la ansixin waayo xildhibaanadii la soo xili waayo agostana la gaaro qorshuhu waa ka duwanaanayaa sidan oo arrintaba waa sibay noqonaysaa baa layidhi soo kama habboona in wax badan laga tanasulo bismillahi raxmaan raxiim ugu horeynta waa mahadsan tahay waxaa meeshaan waxa weeye soomaalida waxay tirahdaa ooginta orgiga ka weyn maxaaba keenay in heerkaas la soo gaaro waxaa keenay waxa weeye meeshan charter baa ullaa charterka wuxuu sheegayaa baarlamaanka hadda jiray oo ay dawladdan hadda joogta ay kala dirtay si sharci darraa u kala dirtay wuxuu leeyahay baarlamaankan yani kii charterkii mbegati lagu soo dhisay waxaa bedelaya xildhibaano lasoo doortay marka waxay ahayd kasoo qaad 2004 ayay laba hadda dawladood oo Mbagati iyo Djibouti baa isku darsamay waa 2004 ilaa hadda 8 sano socotaa 8 sano maxaa loo sameyn waayay dariiqii loo heli lahaa xildhibaano la soo doortay wax kaniba ma yimaadeen waxa kaniba charterkuna wuu qorayaa waa wax qoran weeyo oo aan nina samayn waxa weeye hadda tii ugu dambeysay waxaa la yiri mid maxaa ugu dambeeyay la yiri ka hadda la siisiyo waxa ugu dambeysay doraad baan u malaynayaa inay ahayd wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiri hawsha nootaal nooma suur kuma filaan karto tan iyo August inaan ka gaarsiinay waa in waqtiga naloo kordhiyaa waa statement oo sida la leeyahayna ay tahay arrin golaha wasaaraddu ka doodeen oo madaxweynuhu ka qayb galay oo kulli la isku wada raacsan yahay marka waxa weeye hawshu hadday tahay anigu sidaan wax u jecelahay hala ii sameeyo waa arrin hadday tahayna sidee dalkan marka dawladda madaxda dawladda ayaa dabada haysta miyaad leedahay hadday ruqon ninkii ku taagan yahay makacdo wey marka wixii laga rabay inay qabtaan 8 sano oo ahayd inay sida hadda loo sheegay dastuurka in la sameeyo intii koob la sameeyo in xisaabti siyaasadda hada taa waa la iska daba yimid oo hadda 8 sano waxaan moodaa inay daacad ka yihiin hadda taa 8 sano la soo maray maxay ku lumtay 8 sano taas waqti dheer ay qaadanaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ka hadalno warka jaamac waa war muhiim ah uu sheegay oo ah in la qabto processka laakiin maxaa ka hor yimid wayna ka warqabnaa dib ugu noqon mayno Mr. Jaamac wuxuu kamid ahaa IRS ninkii ka hor yimid TFG joogtay dadkii kale Soomaalida oo aan ogsoonahay ama meel kasta joogeen waa la iska hor yimid dagaal baa dhacay dalkii oo dhan baa qarinmay xisbiye kala soo baxay shabaab baa soo baxay dawladdu xilli ay ku sameyn kartay nabadii samir maana yeelan aanu hadaanu wixii yarka aan dhoodhoobanay sida Jaamac sheegay charterka lagu qortay aanu ku sugno bal inta in la sameeyo inagu maana yeelan sidii qarankeeni Soomaalida baan iskaga burburinay ayaa wixii yarka noo bilaamayna isaga burburinay oo gaari weynay ilaa xitaa la gaaray Muqdisho in villa Soomaaliya ay ku soo hadho dawladii
laakiin nasiib wanaag maantay wax lagu faano weeye muqdisho way nabad tahay oo dawladii joogto oo odayaashii maanta joogaan oo la shiraayo hadda barsaadaani waxaan ka rabaa saadaasha waxay tahay muddada dhiman waa 40 cisho ayaan u maleynaya waqtigi waa yar yahay sida wuxuu socdaana waad aragtaa xildhibaano lama soo xulin ergel lama soo xulin waxba lama soo xulin هي maxaad isleedahay sida labadan nin odayaasha ma in dawladda sida uu sheegay ay iyagu dabada uga taagan yihiin oo rabaan xilliga kororsadaan ba mise waxaad isleedahay wax kala ay waxaan aaminsanahay sida walaalahayga murashaxiinta jaamac iyo general Falco ay halkan fadhiya iyagu ku kalsoon yihiin waayo hadaysan ku kalsoonaan ahayn maba is sharaxeen 20ka August inay tartamayaan marka kalsooni way jirtaa iyo in iraada lagu doonayo in la gaaro mudadaas in dawlad loo tartamo oo madaxda dalku in la gaaro laakiin waxa ka horeeya dawladnimadaas la gaarayo processka hadda socda oo ah xulashadii ergooyinka baarlamankii dastuurka ansixintiisi dabeedna marka waxa loo bandhigaya ummadda Soomaaliyeed inay cidii diyaar u ah sida labadan odayaal maanta fadhida halkan caawana la fadhida inay goobta iskeenaan oo ay tartamaan oo marka si sharciya marka lagu kala baxo marka waxa ku kalsoonahay qodob kale oo asaga lamidan oo gudbaan rabaa hadda musharaxiinta tartanka madaxweynimada labada generaal Cismaan Falco iyo Jaamac Ali Jaamac halkan bay la joogaan in badanna way joogaan magaalada London oo sidaas oo kale ayaguna musharaxiina iyo adduunka kalaba qaarkoodna Muqdisho ay joogaan ودولتها reer galbeedka iyo dawladaha caalamka marka aad fiiriso marka doorasho ama musharaxiin ay isu yimaadeen waxay xaq u yihiin dhowr arrimood inay idaacadaha dawladda xataa ka doodaan oo ay ka doodi karaan hadda walwal waxa soo baxaya ah in dawladda dhaqaalaheena ayadu haysato guddi madax banaana aan la qabanin oo la isku haysto idaacadda dawladda maanta inuusan general Falco Jaamac Ali Jaamac inaysan maanta intay istaagaan ay dhigi kareenin anagu musharax baan nahay waxaas madaxweyne Sheekh Shariif ku qaldan yahay ra'iisul wasaare waxaas ku qaldan yahay inaysan dhigi karin marka doorashada noocaas sidee u dhadhamaysaa marka warka sheegaysid warka duwan baan anigu hayaa oo ah mar allaaliyo marka baarlamaanku soo baxo cidda tartamaysa sida odayaashaanu ay declare garayaan inay candidate yihiin waxa la siinayaa chance sida haddaba ay chance u haystaan ay telefishinka Somali Channel ay warkooda ku cadeynayaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo radio-ga way labada kaliya oo dawladdu gacanta ku hayso waxa jira telefishina fara badan iyo raadiyaal fara badan oo u furan oo aan dawladdu gacanta ku hayn labada haday issue-gaas arintu tahay iyaga qudhooda waxa la rabaa cidna iska bale qaranka Soomaaliyeed baa iska leh telefishinka Soomaaliya iska leh ummadda Soomaaliyeed baa taxpayerska dadka cashuurta laga qaado waxa loo furayaa cid kasta oo war haysta oo Soomaali wax u soo kordhinaysa raadiyaasha loo furaya telefishinada loo furaya waxa kale oo jirta jaraa'idka laftigeed waxa kale inaan ogaana rabno dad ilbaxana qaranka Soomaaliyeed cid caburin karta male dawladda meesha cidna iska bale maxaayadda جنرال واحد ربع هل حبان كدقيا هل أربع كدقيا والباهن موضوع ما موضوع أنا اللي قبحن كريه ما مهم وحن كعريا إن واحد وجه تد بدن وحياه بدن وكوكو حيا أما أديك إنه كتير ساد ردد أما التلفزيون كلا أو مدح بنان أما إذا عاد مدح بنان أو كلا إنان ماشي لكين وحن لقد دودي أديكم مسكوت دايدي أديكم مسكوت دايدي إن إذا عاد قرن كوعده أما التلفزيون كقرن كأنت تكتو أترى هذا مشرح مدحوينا أيان هاي وحنا الربا إن رأيي كذبته واللي مسكوت هيد أنت أنا تاك جوابي وحيرك ليه لها أرمي دستورك دستورك هرت كان نقول ما كان كسي مهم كان كم مهم سن هذا الكيجا أنا شكته دستورك دور جرنا وكحبلي مدحوينها لفتيسة تيدو رعسنا مركا مرد مو اسبدلي دستور حلالة او رمعة او حتى مد كان حد الصعدة قضب لغا سوق هذا كاس اي كو قرن يهين وكابلي
charterkii iyo dastuurkeeni 61 waa issaarnaayeen haye kulli horta ayagaa laga koobiyaaray haye waxaa fiicneed murankan badan soo u dhammaado in waxyaalaha loo baahan yahay oo baahi ay u jirto sida federaalka iyo qodobada barkood waa lagu dari karay wax laga dhimi kara horta kuma jiraan dastuurka 61 waa 100% mid laga shaqeeyay waa garan wax ka maqalna malaha mid kale uu leeyahay dastuurkaas waa isku darki Somaliland iyo Italian Somalia iyo British Somaliland waxay isugu yimideen Somali Republic ya dastuurka charterka markii la dhigay arrintan aad baa loogu murmay oo la yiri waliba groupka oo TNG da qayla badan ay ka keeneen waxa la yiri war hadii laga tago Somali Republic midnimadu waa dhuntay markii magacaas oo ay magacaan la baxay ونقرتي kaas waan garanay haddaba qodobada soo baxay waxaa ka mid ah qodobkii oo 8 qodob hadda lagu heshiiyey oo Somaliland iyo dawladda ku meel gaarka ku heshiiyeen in arinta Istanbul lagu soo sameeyay in la taageero qodobo badan bay hadda ku heshiiyeen haddana arintaas way socotaa laakiin waxaan rabnaa adigu waxa laga rabaa waxaan rabnaa inaan ka hadalno musharaxnimada tan arintan hadda taagan waxaad rabtaa inaad muqdisho tagto waxaad rabtaa inaad dood samayso waxaad rabtaa sida hadda halka telefishinka madax banaan oo kale inaad u fariisato marka adigu horta ma isku daydeen musharaxnimadiina inaad idaacadda dawladda idaacadda qaranka inaad ka sameysaan ma isku daydeen maya taa isku ma sameyn laakiin tii dastuurka inaad dhameystiran rabaa dastuurka fiiri ummadda soo iikaadi maya khaarij mawduucna ma rabo inaan maya khaarij ummadda Soomaaliyeed hadda waxaan galaynaa mataqaan arrinta dastuurku waa arrin macnaha aad u dheer oo mucaawadan laga baxay laakiin anigu jeedadii baan ka haystaa waxa waaye waxaan leeyahay war ummadda Soomaaliyeed dastuurka 61 ayaga approve gareeyay ayaga ogolaaday wax diiday ama baabi'iyay ma jirto dawladda kacaanka ahayd kacaanayayd waxay dhan waa fariisinay waa laalanay ya ilaa hadda xagee lagu tirtiray referendum kala maantaan sameynaa lagu tirtiray waa maya waxaan aaminsanahay laakiin dastuurka loo sameeyay maya ma sameyn 79 ma sameyn xataa hadduu sameeyay waxba kama jiraan markii kan sharci waay dadweynihii baa doortay boqolkiiba boqol lagu doortay waa garan waxa macnaha ra'yiga waxa weeyaan 60kii in loo laabtay taas mawduucan hadda aan rabnay ayuu aad nooga soo dhaxgalayaa marka mar kale dood kale isugu imaan doona insha Allah taala waa fahmay su'aasha arinta dhaqaalaha waxa ka rabnaa dhalinta dhaqaalaha koodi hadda dawladda waxa lagu aadayaa inay dhaqaalo badan iyadu haysato madaxweynuhu waa baxaya wuxuu aadayaa dawladaha caalamka magacii madaxtinimada wax walba lagu soo qaadi karaa marka guddi madax banaan oo ilaaliya inaan dhaqaalaha ama dadweynaha macnaha Soomaaliyeed ay leeyihiin la isku sharaxin ilaa iyo hadda ma ogtihiin oo ma la socotaan mise waa is sharaxdeen oo waxa istiraadeen meesha kaliya ka muuqda jawaab casiraya waxa weeye sidaad u sheegtay markii hawsha tan hadda jirta la gelayo inay jiraan guddi madax banaan oo doorashada u qaabishan oo guddigaas madax banaan markuu leeyahay laba si oodba ku iman karta waxay ku iman kartaa qaarna inay dawladdu soo magacaabdo qaarna dadka tartamaya inay soo magacaabaan oo isku raacaan si ay u noqdaan dad u dhexdhexaada labada dhinacba waa mid taas waxa weeye waa wax la sameyn karo waqti kasta oo loo baahdo oo la isku fahmo waqtigan waa dhow yahay waa taas waa taa tan labaad waxa weeye horta dhibaatada taagan maanta waxa kan hadda jira maxaa keenay weeye qaylada tan maanta taagan waxaa keentay markii la yiri shirkii lagu gaaray London la yiri 20 August wax kororsiimo dame ma jirto marka
hadda dowladdii muxuu ahaa maamulka haysay waxay ahayd inay hawshaas u diyaar garowdo oo ay u diyaar garayso dhaqaalihii lagu wadi lahaa doorashada sharcigii doorashada lagu geli lahaa qaabkii odayaashan la keenayo naftooda dee hadda waa la iska keenee sharci loo dejiyo oo la yiri a b c baa laydinka rabaa ninka haddaan waajibaad la siin ma laha lama siin nimankan siday statuskii ay lahaayeen ama sharciyaddii ay lahaayeen ayaa lagu soo qaaday dowladdu waa dadaashay oo weliba waxay ku dadaashay in dadkii soo jireenka ahaa ay meesha keento wixii muxuu ahaa xoogaa aan sida ahayna badankood baan leeyahay taa ruuxeeda badankood baan leeyahay oo meelo badan oo iima ka jiraan ayaa jira ma rabo hadda inaan anigu wax faagfaago markii dee runta la isugu yimaadana waa meesheeda marka waxa weeye howlaha kan iyagoo cad in horey loo soo qeexay bay ahayd oo ahayd kow iisoo koob waqtiga waxa weeye in sharcigii doorashada naftiisa sharci inay leedahay uu degan yahay ilaa iminka ma jiro waa kow labo odayaashan meesha la keenay ma afka in laga yiri mise wax qoran oo nidaamsan oo ay ku shaqeeyaan oo la dabagalo ma jirto nimanka kan hadda la leeyahay 800 iyo 25 wax yar baa laga taabtay oo waxaa la yiri waxa weeye kala barku waa 445 plenumka hadday joogaan 215 hadday joogaan waa ansax yani oo hal lagu daro 226 xubnood hadday joogaan يعني قضب كي لسوق قاضو وانصحيا وحاسو دمينا وحوي ان انت ارمهاس markii la keenay intaan odayaasha iyo dadkan lagu wareerin arinta dhaqaalaha sug adrishi arinta dhaqaalaha waxaa dowladda lagu haystaa ان dad badan oo musharaxiin intay muqdisho ku shireen meelo badan ku shireen ayay ka dhawaajeen waxay yiraahdeen وريا دمانات قاضي إن قاله مقعد تدوينها أي دولته كهشة أما سوى البقوة شيء يا دم أما دلك أما مقالة المقدشة أما ميلا كده هذا كسب بعد يا دمانات قاضي إن ليش كل شرحين أو أن لو أديك سنت إنه شرح عن ماذا؟ ورت دقالها دلك الصوق على وبسكيري بس إذا نكور قمنا صوماليا وحاول هذا ماير كمقدشة مستر ترسن وكوبا قيدت كمقدشة شو إن دقاله لجو مالجرين لها أما لجوه الجرين لها بروسس كالصعدة إن ددوينها هي بعمشروا جايز كسر أروريا وولد دتكم مرش شوكان حل جارة أيام مرة بعد ما شاقي سعران أو إن سودوين دتكم مرة بدنا صومالي ده سوء إيمان أيام وضيالها هذين أما قوينا هذين أما إن بدقليد اللفتيد إن حل سعران حل أن ومضاها كلا قبلده متى نقالها أرنتها لقى بسنة يوم arrinta waxay ila tahay dhaqaale saas ma jiro haduu jirana waxa man loo haynba ciidamadii qalabka sida iyo booliiskii iyo dhaqaale hadda dibaddu dalka dawladdu ay ka heshaan dhaqaale badan oo dawladda lagu eedeynayo miyaadan maqlan oo eedeyntu waa wax kale to waxna waa eedeyn waxna wax si u jirto eedeyntu waa iska Soomaaliya dhaqaale fara badan ayaa magaceeda lagu cunaa nimanka wax eedeynayaan cuna waa la iska wada warqaba NGO yahay yihiin dalal kale hadeeyin بلايين بلغة هلايا وحنا تا إذا أباهن تاعي دولة الصومالية مركز تيماتو أو رسمية إن أي تا إذا كل تشالنج جرايسو تديوجا إذينية تذكر الصومالية مساكين تاعي دبعتو كل علي أو حلوه دي أنت كعنين أما بط بوبين أما هو دي حتى وحي لقيه اللي تري أن لهلين يدقالة فربنا معاونا دولة هلا ده واحد كلو دقالة أما إيشو جا هذا دقالة قد المدح بنان إذا هذا شاب كنت دقالة كسو شوطه كتر تميسا وأدك تحي مدحدي ترتميسنا هل بيفردنا يا إلالنا تدي إلالنا فيري مدحدي ترتميسنا هل كان بيفرديان وهي برنامجه مش وين اللي ماذا سيدنا وحاجته وحال السمانة يا سيد هذا جامع شيء
guddi madax bannaan oo doorashada ilaaliya waxaa la filaya fiiri waa barnaamijka caynkaas in guddi madax bannaan la samayn doono waa la sheegay oo isagu noqon doona electoral commissionkii eegi lahaa doorashadu siday u dhaxayso iyo qaabka oo dibadda ka imaanaya gudaha iyo dibaddaba waa laga keenaya dad ayagu aan lana dooranayn waxna dooranayn ayaa la rabaa inay horseed ka ahaadaan oo madax bannaan oo Soomaaliya haddii loo baahdana dad ajnabiya oo observers ah lagu soo diro oo Soomaali kaliya aan la soo dirin arinta ku saabsan janaal waxaan rabaa inuu soo koobaya hal arin adigu hadda soo musharax madaxweyne Soomaaliya maskaxdaada marka la sheekaysa dad badan oo musharaxiin ah oo inta badan aan la hadlay madaxiisa qof walba waxaa ku jirta dhaqaalihii oo xildhibaanada 225 ah oo ama siisan lahaa oo codkooda uu ku heli lahaa ayaa ku jirta adigu taa madaxaaga ma soo gashay maya waana kala hadlay aniga hay traditional elderska imaamyada iyo waxaan ku eri waxaan wax la gudbaayo waa laga baxayaa ha isceebeynina qabiilkiina barkii nin walba qabiilkoo u dhashay oo u xulayaa u xula dad culus u qalma dowladnimada ninba ninkuu ka aqoon badan yahay u xula kuwa la xulaayo ha noqonina kuwii mataqaanaa lacagaan ka dhigayna dhihi jiray magarad hubka intaan la iska dhigin laakiin soo la barmaayo ragga musharaxiinta kamida soo markii horeba kuma talagalayaan inay yiraahdeen war horta 3 meelood 2 meelood taas waa wixii hore u dhici jiray laakiin ninkan qofkan ku sheeg warkiisa wara dhageysatay janaal ma garan meesha arabto waxay tahay hadda ka hor 2 nin oo musharaxiin la hadlay marka waxa la yiri waxaan iri arrimo badan oo xagga samafala ama xag walba ayaa la rabaa inaad ma dadkiina wax loo qabto camal arrintan waxba kama taraysa la yiri dadka musharax dadka oo xildhibaanada noqon doona dhaqaalaha u baahan yihiin baa lagu tashanaya maahane marka arrintiisa muhiim waaye wuxuu ka hadlayaa khudbadii uu jeediyay laakiin taasna waad ka hadli doontaa laakiin haddayna adiga maskaxdaada ku jirin arrimaha noocaas oo kale iman kara ee la leeyahay musharaxa xildhibaankan aan marka hore horta seen ku helnaa xildhibaan aan codkeena ka helno arrintaas waa arrinta waddanka qaribtay waa saas waa midda muhiimka waxa way xasan sidaad u sheegtay lacagta dadku uu lahaa Soomaalida ay lahayd qofka dowladda u shaqeeya xaq uma leh inuu jeebka intuu ku soo rito uu kulaayo dadka ama ku tartamo xaq uma leh weliba anigu waxaan sii jeclaan lahaa oo hadda taagan aan rajaynayaa inay dhacdo in waxa kan waa la ogyahay Soomaaliya taariikh baa jirta inkastoo nasiib darrada Soomaalidu ay tahay shalay ma xasuusanaba shalay ma xasuusan haddana waxaan qabaa adduunka dadka waxayna siiyaa anoo ka duwan fikradii Cabdirashiid mid ka duwan anigoo qaba waxayna siiyeen waa og yihiin waxayna siiyeen meeshay martana waa og yihiin ma wixii dadkoodu dib u laqay mise waxay xaggeena soo maray wixii xaggooda laqeen dee iyagaa isu xisaabtamaya wixii innagayna soo gaaray haddii ay jirto cid ka mida dowladda oo arrimahaas hantidii guud ku tagrifashay oo iyagu si gaara u qaatay si ay hadhowdii ugu soo baxaan waxaanu dadka hantidaa bixiyey waxaan ka codsanaynaa in la dabagalo hadday ku caddaato inay wax qaateen inaan loo ogolaan inayan ka qayb gelin doorashada waa arrin wanaagsan waxaan raacsiinaya jaraal data aniga anan dhamay yaa iga wareejisay horta sideedaba dimuqraadiyadda maxay tahay waxaway xoolahan ama hana ku sadaqaysto ama dekadaha ka soo galaano xaaraan waxa ah in mataqaanaa arrimo shakhsi ah loo adeegsado xaaraan waa electionkan tartanaa jira
qofka aniga ila tartamaya marka uu lacagti dawladda jawaabka ugu jirto Haye. marka uu wato baabuurkii dawladda Ha. markii uu rabo inuu isticmaalo booliiska iyo ciidamada Haye. waxa waaye wax caqliga caadiga ah haye haye wuxuu garan kara waa xaram waa haye waa in walwal noocaasa maadaama aad Waa qabnaa. madaxtinimada ma qabtaa waa qabnaa haye waa qabnaa sidee looga badbaadi karaa waxaa looga badbaadi karaa labada qof oo tartamayso Ah. equal inay ahaadaan Haye. isku xuquuq Haye. inay ahaadaan Haye. haddii xuquuqdu kala sarreyso Ah. waxaa always waxaa cabdirashiid aad nagala fikradda uu joogtay. janalku Haye. soo jeediyey Haye. waa fikrad xalaal ah Aad oo aan iyo- meel laga maro haye lahayn haye waxaa jirta doorashada tan sida uu janaalku sheegaba waxaa sal u ah Ah. mudanayaasha baarlamanka sida uu janalku sheegay Imaanta. lasoo xili doono haye dadka caynkaasi ma yihiin kuwa mudanayaal ummadda soomaaliya ee gobolada iyo degmooyinka kala duwan ka yimid mathali kara Haye. u mathali karaa baarlaman isagu yeesha kalsoonadii qaranka soomaaliyeed ee scrutiny wax la yidhaahdo Haye. ama isagu dowladda meesha timaada iyo madaxda dalka timaada la doodi karo Haye. baarlaman jeefafka lagu haysto sidii doona laga yeelo Haye. ee kuwii aanu soo aragnay oo oo aan kale aqoon lahayn ee aqoonteeda iska badaa kriteeriyada la diyaariyey Ah. oo lagu soo xulanayo odayaasha dhaqanka laga codsaday Ah. sida hadda janalku uu tilmaamay oo ah war waxaad gobolada iyo degmooyinka dadka ka imaanaya ee Haye. ummadda soomaaliyeed u mathalaya qaran baarlamankii qaranku lahaa Ah. ha noqdeen kuwa hanan kara magaca ee aanu noqon wixii aan soo aragnay waa iyo tahay baarlamanka deeqadaha soo noo aragnay dhiman marka fursad waxaan siinayaa labada musharax madaxweyne waxaan rabaa waa daqiiqada inaad noogu soo koobtaan rabnaa maadaama aan aada kugu mahad celinayo fursada qaaliga ee aadna siiseen oo barnaamijka aad timaadeen inaad ka qayb gashaan ood waqtigiina usoo lumiseen haye marka waad sharaxan tahay waa umay waad sharaxan tahay waxaad rabtaa wadankii inaad qabato dhibaatadii uu soo marayna waad ogtahay xaaladiisana waad ogtahay maxay dadku kugu dooran karaan oo aada maanta u sheegi kartaa waxaan u sheegi karaa dadka inaan ku maamuli doono Haye. sharciga ay degsadeen haye sida uu yahay anoon meelna ka leexin inaan ku maamulo haye wixii isku dayo inay mataqaan leexiyaanna anaa mas-uulka ah inaan ka celiyo oo midnimada ummadda soomaaliyeed Haye. lagu dhowro dastuurka haye walow dastuurkaan saan sheegay ma ictiraafsana aniga kii 61 ictiraafsana haye marka uma socdo aniga wax anigu aanan aaminsanayn waxawaaye waxaan ummadda ka dhexeeyo yah inaan anigu ku takrifal ayagana waxaan kula talinaa dowladda jirtana waxaan kula talinaa war ilaahay baa irsaaqada bixiya waxaan anigu aaminsanahay hadda haddii ilaahay amrana inaan soo gelaayo oo madaxweyne noqonayo haddaan ilaahay amrina inaanan noqonayn laakiin markaan ku mitido wax ilaahay diidan yahay waa waalida hadda socota waalida hadda socota waad la shaqeynaysaa dowladii qofkii la doorto waa qasab waay waa la shaqeynayaa haye jaamac fursadaad aada haysatid haddii aad ilaahay kugu talagalay inaad kasoo baxdo dadkan dhibaateysan oo aada arkeysid ilaa intaasoo dhibaateysanaa maantana cid kasta oo timaadaa laleeyahay farta lagu feeqayo sidii aan rabnay ma una sameyn laleeyahay maxaad adigu kaga bedelaan karaysaa anigu waxaa kaga bedelaan karaa marka ugu horeysa ha maanta keliya isma soo taagin haye beelo kalaan iska soo taagin haye waxaan kaloo haddaan ku iraahdo arrimaha kan siyaasadda muddo dheer baan kusoo jiray haye waxaan kasoo bilaabay arrimaha siyaasadda xafiiska xiriirka dadweynaha la igeeyay anigoo keligeeya haye oo aan staff lahayn oo aan shaqo lahayn oo aan barnaamij aan ku shaqeeya waxba lahayn meeshii baan tegey waa laga bada soomaaliya o dhan waa ka wada mara kacaysaa keligey baa meesha la igeeyey waxaa layga soo saaray ciidamada layga soo fogeeyey haye meeshaasaa la keenay kursi iyo miis baa yaala haye anigu gacmaha isma saaran ma oran oo yani ma dudino waxaan u yeeray dadkii aqoon-yahanka ah oo isku jiilka aan ahayn haye waxaan idhi annagu haddaan military nahay inqilaab baan samaynay haye waxaan soo jeedinayaa anigu inqilaabkaas inaan u bedelo kacdan haye kacaan inaan u bedelo ayaan soo jeedinaya haye marka taasina waxay ku suuroobi kartaa idinkaas haddaad si dhab ah aynu u wada shaqeyno haye wixii xagga sare ah anaa dhabarka idin u u dhiganaya
laakiin wixii hoose inaan ka wada shaqeyno waa dee taariikh qoran weeye oo maaragtay aan ku faanayn waa mid waa wax yani maantay xamar marka lasoo qaado muqdisho lasoo qaado maanta waxaa la yidhahda 6 iyo 10 iyo 7 iyo 10 degmo anigu markaa waqtigeyga 3 iyo 10 degmo xamar anigaa ka dhigay kuwa qaarkood magacyadooda personally anigaa bixiyey waa gartay waxaynu ku timi waxa weeye hawshaas waxay ku timi ma aha waxaan anigu keligay lahaa waxay ku timi dad wada jira waa dadkii aad la tashatay oo aan la tashaday oo ka wada shaqeeyo hawshii marka taas macnaheedu waxa weeye waxaan maantana sidoo kale waxaan kasoo noqday puntland madaxweyne laygu doortay reer puntland hala raaco curriculumkeygii wanigii lahaa dadku shalay ma xasuustaan haddii ay noqotay wax dadku lahaa si gaara inaan ugu tagrifashay iyaduna waxa weye waa taariikh qoran weeye waxaan leeyahay marka waxa weeye anigu waxaan isu soo taagay oo aan musharaxnimada tan usoo doontay oo inta cimrigeyga ilaah baa og intuu jiraye in dadka soomaalida ah dhibaatada ay ku jiraan inaan ka saaro oo aan uga saaro inaan u noqdo adeege ma aha inaan u noqdo madax inaan adeego u noqdo adeeganimadaasuna ma aha mid aniga keligay ah ee waxa weeye dad wada jira oo mabda soomaaliyeed ka dhaxeeyo oo aan ku shaqaynayn hanti iyo jago iyo waxyaabo kala midna har iyo habeen diyaar u ah inay dadkooda u adeegaan waayo hal qoray keliya hal qoray mabdaan isu soo taagay wuxuu ku salaysan yahay dal hodona inaan ka bedelo dal hodona oo dadkiisu ay sabool yihiin inaan u bedelo dad hodona dal hodona iyo dadkiisu hodona okay waa la baaqayaa oran lahaa oo kaliya wax kale ma waxaan soo dhaweynaynaa murashaxiinta haddaanu dadka dowladda u shaqeeyanahay waxaanse in la tilmaama u baahan dowladda tan in ay noqotay dowladdii u horreysay ee gacanta ku dhigtay muqdisho dalkana intiisa kala dhammaystiraysa inkastoo murashaxiintu aada u fara badan yihiin haddana su-aal baa dadka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba ay isweydiinayaan oo ah dalkeenu ma qaadi karaa intaasoo murashax doorasho fara badan polarization wax la yidhahdo ma ka bixi karaa su-aashaasna waa su-aal meesha taalla laakiin haddana waa tan hadda sheegay oo waa soo dhaweynaynaa waxaana ku kalsoonahay iyaguna siday tilmaameen waa in lagu kalsoonaada madaxda hadda dalka u talaysa in ay soo gaarsiiyeen wadankii meel doorasho magaalada muqdisho maanta la isugu yimaado inay ka dhacdo guulihii ciidamada qalabka sida aan ogsoonahay nabadgelyada haatan muqdisho dadka Soomaaliyeed ee muqdisho deganna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa maaragta soo dhaweeya madaxda tan iyo madaxda kale iyo shacabka Soomaaliyeed ee imaanaysa magaalada muqdisho annaguna waxaan aad ugu faraxsanahay hadda ummadda Soomaaliyeed nahay iyo shaqaalaha dowladda in aanu meel weyn aanu ka gaarno ma ahayn inuu dowladdiisa campaign u sameeyo ama ragga madaxda ka inuu campaign u sameeyo ma ahayn wuxuu ahaa in xaaladdu sidii laakiin ma yaa soo taas waxa lidaa soo wasaax objective ma inuu ku talagalo berina laga yaabo in annaka dowladda hadda jirto aan bedelno marka in annaka kolleyba cadowtooda u qaadi ma doono laakiin zaa'idka waa inuu waata waa maasantihiin aad baan idinku mahadcelinayaa sida qaaliga aad nooga aqbasheen inaad kasoo qayb gashaan barnaamijka falanqeynta dhacdooyinka daawadayaal cidda uu seego waxay ka daalacan karaan website-ka www.dhacdooyinka.com ayay kala socon karaan barnaamij kasta oo falanqeynta dhacdooyinka ah dhacdooyinka.com ayaa inoo balana inaad ka daalacataan barnaamijkan quruxda badan oo aan ugu mahad celinayo General Jaamac Ali Jaamac oo Jaamac Ali Jaamac Ali Jaamac hadda wax laga faano noqdo Jaamac Ali Jaamac oo isagu hadda ah musharaxa madaxweynenimada wadanka Soomaaliya bisha August insha Allah taala ilaahay idinkiisa aan rajaynayno in dawlad
isbedel weyn dhalisa ay wadanka Soomaaliya ka dhalato madaxweynaha hore ee dowlad goboleedka Puntland waa tahay General Cismaan Xaaji Cumar Falco waana abukaate isaguna waa musharax waxaan u maleynayaa in shaashadaha ka daawateen xafladiisii dhawaan lagu qabtay magaalada London waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa Cabdirashiid Said oo isagu kamida danjirayaasha Soomaaliya waana danjiraha dowladda ku meel gaarka u qaabilsan arrimaha caalamiga ah shirarka caalamkan uga qayb gala kulligiin dhamaantiin waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin farsamayaqaanada caawiyaan iloobin waa farsamayaqaan Cabdullaahi Yafarna iyo Saciid Yare tan kulanta dambe sida iyo nabadgeliyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh